Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga marna asxaabtayda qaaliga ah soo dhawaada meel kastoo aad ka joogtaan dunida daafaheeda isku soo noqod wanaagsan alxamdulillaah. Asxaabtayda qaaliga muuqaalkan waxaa idinkugu wadaa kuukar nadiifin qaybtii labaad. Saa idinkaga ballan qaaday markii aan idiin soo geliyay qaybtii hore, waxaan idinka raali gelinayaa inuu idinka soo daahay 114 ku raali ahaada. Asxaabtayda qaaliga saad aragtaan kuukarka waxaan u adeegsanayaa markaan inaan ku nadiifiyo liin dhanaan. Hal xabo liin dhanaan aan soo qaatay, waan kala jeexay, halkii jab ama halkii jeex ka mid ah ayaan soo qaatay. Kadib waxaan ku raab gareynayaa ama aan ku xoqayaa kuukarka korkiisa. Isla markii aan ku xoqana waxaa ka dareemaysaa in qoyaan ama wasaq idiin muuqato, waana wixii ku dhedheganay oo wasaq ah kuukarka. Mideeda kale asxaabtayda qaaliga ah, ani ahaan waxaa aaminsanahay qaybtii koowaad oo kuukarka aan nadiifinayay iyo qaybta labaad in ay zaaid u fududahay qaybtan labaad, sababtoo ah qaybtan labaad qof walba uu awoodo wuu heli karaa. Inkastoo hadda kuukarka aniga aan isticmaalayo ay ka dambeeyeen naqshado fara badan oo kuukar ah, qaarkood sabiibax ay yihiin, qaarkood dhalo ay ka samaysan yihiin. Haddana waxaan ugu talagalay maadaama aniga isaga aan haysto dad aniga ila mid ahna ay jiraan, ay jecel yihiin kuukarkooda mar walba inay nadiifsadaan, misana aysan awoodin ama aysan garanaynin meesha laga soo iibsan karo kuukariska ama kuukarada waxyaabaha lagu nadiifiyo, dareerayaasha ayaan kala jeedaa. Insha Allahu tacaala adduunku waa step kuukar waaweyn kuma calaa foornada wato. Markaan gaarnay iyadana insha Allah waxyaabaha lagu nadiifinayo waan soo gelin doonaa haddii aan isla sii noolnahay. Asxaabtayda qaaliga ah, saad ka dareemaysiin hadda liin dhanaantii way iga soo dhamaatay, san ugu xoqaay marba meel way iga soo dhamaatay. Waxaa idin tusinayaa qaabka aan ugu nadiifin lahay fadhiyada madmadow ee kuukarka leeyahay. Xoogaa liinta wax aad dhiijinaysid iska dhigaysaa, kadibna waxaa ku xoqaysaa kuukarka fadhiyadiisa madmadowga ah. Inta la nadiifinayo kuukarka meesha aan isleeyahay way ugu dhib badan tahay waa fadhiyadan madmadowga ama birahan gacmaha aan ku haayo ee kuukarka uu leeyahay. Saasay tahana waan ku nadiifsanayaa kuukarka. Liintii waxaan sameeyay waan gediyay ama waan rogay si haddana ay igu fududaato xoqitaankii liin dhanaanta. Isla markiiba waxaa kasoo dhacay wasaqda gacanta hadda aan ku haayo aad u jeedeen ayaa kasoo fuqay. liinta si zaaid ayay u nadiifinaysaa, xoogay leedahay macna maadaama aashito ay tahay aashitooyinka ay ka mid tahay. Marka waxaa waaye kuukarkii meelaa iska soo dhigay fadhiyadiisii madmadoobay 10 daqiiqo ayaa ka tegaysaa. Inaa isla fahanaa rajeynayaa 10 daqiiqo markaas saan u dhaqdhaqdo ama aad ugu xoqxoqdo liin dhanaanta 10 daqiiqa ka tegay, hore ma ka dhaqaysid. waa iska soo daneysane 10 daqiiqo kadib waa soo noqone kuukarka waxyaabihii qaar oo ka fufuji weysay iyo wasaqihii hore oo aad ka fufujisay iyo ayagoo nadiifka oo ka fuqfuqeen aa u soo laabanaysaa. Inaa isla fahanaa rajeynayaa. Kadib waxaa soo qaatay isbuunyadii biyo caadi aan soo raaciyo zaaidna waa u soo majuujiyay ilaa lama rabo wax qoyaan kuukarka inuu ku halaabo. Isbuunyadoo qoyan hadda dhexda kuukarka marmarina waxa dhan waa isku lablabay u ekaanayaan. Marka si fiican u soo nadiifinaysaa isbuunyada. Isbuunya idin kula talin lahay in aad marmarisaan intii aad mara isticmaali lahaydeen. Marada isbuunyada dhaanto girgirada ama fadhiga madowga meesha la gelinayay waxyaabahaas oo dhan aan ku soo nadiifinayaa. Wasaqdii ay qaaday liin dhanaanta ayaan uga fujinayaa. Marka waxaan sameynayaa isbuunyada hal mar ma ku wada marinayay, marba qeybaa nadiif qaybta iga wasaqooda maahan qaybta kale ayaa haddana u rogayaa. Maadaama aanan biyo raacinaynin kuukarkuna uusan ahayn weel biyo la raaci karo, dhanka nadiifka ah ee isbuunyada ayaa mar walba marinayaa. Haddii wax la raaci karo uu yahay way fududaan lahayd maahano, biyo isaga shubi lahayn ama haddii kale waxaa baaldi inta biyo kusoo shubana dhex geli lahayn. Laakiin hadda taas ma jirto, waana laga ilaaliyaa biyaha. Fadhigii wixii dhamay hadda waaba soo samaystabo. Fadhigana waa soo tirtirte. Fadhiga aan sheegay kii guryaha yaala ma aha, waxaa kala jeedaa godgodadkaas madmadowga biraha ku jiro
birahaas madow aan kala jeedaa. Shukumaan yaraan soo qaatay. Shukumaankii ayaa waxaan ku sii qalajinayaa qoyaankii yarka oo uu ka tagay isbuunyada ama isbuunyada ay ka tagtay. Asxaabteeda qaaliga ah, run ahaantii maalmahan xoogaa muuqaaladaydu way yaraadeen saa dareemaysiin. Caajisa iska keesaaran ma fahanteen. bal ii soo duceeya, waxaa waaye adduunyada caajis iyo wax kasta waa laga arkayaaye. ducadana waxaa la aqbalaa la yiraahdaa markii ay kala maqan yihiin labada qofood isku duceynayso. ducadaas maqbuul waaye, waa la aqbalaa. markaan isku soo duceynay insha Allah, adinkana waxaa waaye waa ku idin soo duceynayaa, anigana ii soo duceeya. kuukarka hadda waxaa idin leeyahay okay uu kusoo baxay. soo saas ma kuukarka maasha Allah hadda kusoo baxay. xoogaa markuu leerka ku aadan yahay waxaa u maleysaa si inuu waxaa keenaya leerka wax ku duubayay wuxuu ka dhigaya asaga dhan inuusan nadiif ahayn. laakiin markay caadi u ag taagan tahay maasha Allah waaye. asxaabteeda qaaliga ah, assalaamu calaykum.